xiisadda ka taagan marinka Gaza ee u dhaxaysa Israa'iil iyo Xamaas ayaa keentay in qaaradda Afrika ay si weyn ugu kala qaybsanto iyadoo wadamada qaar ay doorteen inay ka aamusaan halka qaarkoodna ay si cad u muujiyeen inay garab taagan yihiin Israa'iil kuwa kalena ay gacan siinayaan Falastiin. Kenya, Ghana iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ayaa ka mid ah dalalka Afrikaanka ah ee madaxdoodu ay taageerada u muujiyeen Israa'iil. Kenya waxay ku biirtay caalamka intiisa kale si ay ula midoobaan dawladda Israa'iil waxayna si aan leexleexad lahayn u dhaleecaynaysaa argagixisada iyo weerarada lagu hayo dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan ee dalka, ayuu yiri madaxweyne William Ruto oo qoraal soo dhigay barta X 7 Oktoobar kadib markii Xamaas ay weerar lama filaan ah ku qaadeen Israa'iil. Ma jirto wax cudurdaar ah oo loo maro argagixisanimada taasoo khatar weyn ku ah nabadda iyo amniga caalamiga ah, ayuu hadalkiisa ku daray Ruto. warbixin ay soo saartay Oktoobar 8 wasaaradda arrimaha dibadda ee Ghana ayaa waxay ku sheegtay in dalkeeda uu xaqiijinayo taageerada uu hayo Israa'iil xaq ay u leedahay waxa ay ugu yeereen inay isdifaacdo. geesta kale madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa ballan qaaday inuu garab istaagi doono shacabka Falastiiniyiinta. dhammaan annaga oo halkan taagan waxaan ballan qaadaynaa inaan garab istaagno dadka Falastiin. waxaan halkan u taagannahay sababtoo ah waxa aan aad uga walaacsannahay gabadfalada ka socda bariga dhexe, ayuu yiri khudbadu ka jeedinaya shir xisbiga talada haya ee African National Congress ee loo soo gaabiyo ANC oo ka dhacay magaalada Johannesburg. boqolaal dadweynaha oo ku nool magaalooyinka kala duwan ee Koonfur Afrika ayaa sidoo kale dhigay dibadbax ay ku dhaleecaynayaan sii socoshada gumaysiga Israa'iil ee Falastiin. dad badan oo reer Koonfur Afrika ah waxay sheegaan inay taageersan yihiin halganka Falastiiniyiinta sababtoo ah waxay rumaysan yihiin waxa ku dhacaya Falastiiniyiinta ku hoos jira gumaysiga Israa'iil inay la mid yihiin wixii ay la kulmi jireen xilligii midabta koorka uu dalkaas ku jiray. Algeria oo ah wadan kale oo Afrikaan ah oo awood leh ayaa sidoo kale si kulul u dhaleeceeyay weerarada Israa'iil ee Gaza waxa uu muujiyay inuu garab taagan yahay Falastiin. wasaaradda arrimaha dibadda ayaa walaac ka muujisay weerarada Israa'iil ee Gaza iyada oo sheegtay in xadgudub ay ku tahay sharciga caalamiga ah ee bani'aadanimada. Soomaaliyana waxay ku tilmaantay dambi dagaal xadgudubyada Yahuudda iyadoo mas'uuliyadda mashaqadana u saarisay maamulka Israa'iil. masaajidda ayaa looga duceeyay Falastiin. mudaharaadyana meelo Muqdisho ay ka mid tahay ayaa laga qabtay intaas oo ah awoodda wadan isagaba la daalaadhacaya duruufo kala jaada 10 sano. khubarada ayaa sheegaya in kala qaybsanaan aysan la yaab lahayn. Louis Gitinwa oo ah falanqeeyo siyaasadeed oo fadhigiisu yahay Rwanda ayaa sheegay inaysan ahayn wax la yaab leh in arrinta Israa'iil iyo Falastiin ay kala qaybiso qaaradda sababtoo ah wadamada Afrika ma laha mowqif mid ah marka ay timaado siyaasadda dibadda. dalalka Afrika waxay arrintan ka qaateen mowqifyo kala duwan oo ku saleysan danahooda siyaasadeed iyo kuwa juqraafiyeed. tani ma aha wax cusub. dawladuhu waxay leeyihiin dano ee ma laha saaxiibo, ayuu u sheegay wakaaladda wararka Anadolu. dalka kaliya ee Afrikaanka ah ee xiriir taariikh ah oo dheer la leh Israa'iil waa Ethiopia, balse wali ma cadda mowqifka ay ka taagan yihiin xaaladda haatan taagan. waxa uu sheegay inay muhiim tahay in laba dal oo Afrikaan oo waaweyn dhaqaale ahaan sida Koonfur Afrika iyo Algeria ay taageero u muujiyeen Falastiin. Lesiba Tefo oo ah professor wax ka dhiga jaamacadaha South Africa ayaa sheegay in qaar ka mid ah dalalka Afrikaanka ee taageera Israa'iil ay ka maqan yihiin qadarinta taariikhda iyo wacyiga siyaasadeed. marka aad eegto taariikhda aasaaska Israa'iil waxa kugu adkaan doonta inaad fahamto sababta qaar ka mid ah madaxda Afrikaanka oo u badan kuwa ka soo jeeda dalal la gumaysto oo reer galbeedku ka faa'iideysteen ay maanta iyaga laftoodu u taageeraan dulmiga. Falastiiniyiinta waxay ku jiraan xaalado ay mar ku jireen, ayuu sheegay. Tefo waxa uu tilmaamay in qaar ka mid ah kuwa taageera Israa'iil ay ilaalinayaan danahooda dhaqaale halka kuwa ka aamusay ama mowqifka dhexdhexaadka ah ka qaatayna aysan doonaynin inay ka careysiyaan xulafadooda galbeedka. nasiib darro waxaa jira qaar ka mid ah wadamada qaaradda oo aan miisaaniyadooda la gudbin karin sababtoo ah waxay ku tiirsan yihiin deeqaha shisheeye ee reer galbeedka. si aysan uga soo horjeedsan reer galbeedka waa inaysan ka soo horjeedsan Israa'iil, ayuu yiri. Tefo ayaa intaas ku daray in qaar ka mid ah madaxda Afrikaanka ee taageeraya Israa'iil ay yihiin kuwa xafiiska ku soo galay taageerada reer galbeedka. laakiin Boshan Ismaaciil oo ah saynisyahan ka tirsan jaamacadda Rwanda ayaa tilmaamay in qaar ka mid ah dalalka Afrika ay ku tiirsan yihiin Israa'iil sida tiknoolajiyadda, militariga iyo hubka. uma malaynayo in dawladaha Afrika ay xiriir diblomaasiyadeed oo aad u xoogan la leeyihiin Israa'iil, ayuu yiri isaga oo raaciyay in cilaaqaadkooda uu ku saleysan yahay hab fursado ah oo iskaashi ah iyo kaalmo ay ka helaan Yahuudda. colaadaha ka oogan gobolka bariga dhexe oo kala qaybiyay adduunka ayaa inta badan waxa wadamada reer galbeedka ay gacan siiyeen Israa'iil halka dalalkii Carabtana ay taageeradooda Falastiiniyiinta dhaafi laadahay
kuwa hadal iyo kulamo gaargaara ku saabsan. intaas waxaan ku hakinaynaa falanqaynteennii aan ku eegaynay Afrika iyo doorkeeda Gaza, gaar ahaan sida ay ugu kala qaybsameen taageerada Israa'iil iyo Falastiin. waqtigiina ayaad ku mahadsantihiin. nabadgelyo.